anshaxa 14aad waa waxaan iskula dhaqannaa jacayl. bar ilmahaaga naxariista iyo jacaylka. Carruurtu way dhagaysan karaan hadalkaaga, laakiin waxaa ka sii muhiimsan oo ay wax ka bartaan u fiirsashada ficiladaada. Tusaale ahaan, adigu ahow qof u naxariista ilmahaaga, kulana hadla hadal naxariis leh. qoyskiinu ixtiraam iyo xushmayn ha ku noolaado. Haddii aadan garanayn, raadso bugaagta iyo barnaamijyada ka hadlaya jacaylka qoyska wuxuu yahay. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.